السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي جميل كستاجوكتين سو هذا channel كني حرمتو عندنا عافيماتك ولكن شكري آدم بولي أصحاب تقيمها بدن يعني غلط وعتدنا هذا سو هذا عندها إني قوم هرسن channel كينواي أنت قد توبي جن أسي جود قلين حين قعد صناعي إنا سبسكرايب سميسين شكريسين لايكرسين إنك أسكال channel كصومالي وين ملك استخدم كجوكتين ديرجلنا إني جبهني حلا وح easy maaha raqiisa maaha waxaad adag run ahaantii time lagaga baahan yahay in wax kale sida lagaga baahan yahay soo maanta topic-na maxaa waaye topic-na waa xasi socdo ragga Soomaaliyeed dhinaca laga dhisaayo ninnimadooda I know complete way laakiin laga caawinaya bahaaladii soo laalaabatay maxaa dhahaa codsigii aan sii wada hadda soo maanta maxaa halkan ku haysanaa waaye so personally waxa la soo weydiiyay wiilal badan isoo weydiiyeen shukri maxaa sameyn karaa marka oo ninka ragga bihiisa daciif yihiin ama go-an yihiin go-ayaan xoog lahayn maxaa kor lagu qaadi karaa hadda waa shahwadiisa laga hadlaya ama bihiisa ka imaanayo dhinaca cuntada caafimaadka cuntada ay soo weydiin maxaa kor u qaadi karaa biyaha ragga ninka Soomaaliyeed ninka waaska ninka ragga hadalkani ku badina marabo biyaha hadday daciif yihiin ama biyihiisa ay xoog lihiin waa maqlito maxaa lahaa mar badan oo ninkaas biyihiisa daciif ah that's why naagtiisa ur qaadi lacadahay ama biyihiisa ayaa googo-o biyihiisa xoog ma laha soo biyaha ayay ka dhisayaan soo maxaa halkan ku haysanaa waxaa laga rabaa caagan inay haysatid saas ah u fiiri asxaabta wiilashan hadlaya hadday xaas leeyihiin xaaskooda meesha soo xaadirto of course inay caawiyaan u baahan yihiin soo caagana soo qaadanaysa caagan ka soo qaadatid koobkan oo kale biyo inta saahado haddii kalena waa buuxsan kartaa wuxuu maaha waa hal koob waaye soo marka halkan maxaan ku haysanaa waaye asxaabta qaaliga halkan waxaan ku haysanaa timir ku haysanaa timirta noocyadooda iska badan tahay maxay noqon kartaa iyadoo cadaan xitaa jirto iyadoo madow waa jirto way badan yihiin ani timirta caadiga ka hadlaya and then wuxuu sameynayaa waxa la hadlaya hadda oo qofka ninka ragga ah ee biyihiisa daciifka yihiin ama biyihiisa ay go-aan ee xoog lahayn sidoo ku awood ku siin lahaa ama ku adkeyn lahaa ama ku badan lahaayeen ayaa rabaa aan ka hadlaya saddex xabad timir soo qaadanaysa saddexda xabad timir ka soo qaadid waa fiiqay marka fiiqdid waxaa ku ridanaysaa caagana saddexda xabad timirta ku ridanaysaa ka soo qaad waa fiiqnay hadda sayni tusaayo timirta lafta ka bixinaysaa lafta markaa ka bixiso halkaas ku ridanaysaa markaas ku ridatid saana sameynaysaa markaa saddexda xabad waa dhameysay saddexda xabad ka soo qaad markaa ku ridatid biyaha ku shubanaysaa biyaha markaa ku shubtid waxaa la sugaysaa hal maalin camal ka soo qaad waa kaas marka waxaa sameynaysaa biyahaaga ku shubanaysaa inay nutsa fiican I know so that's qofkii hadhow ka faa'iidaysto markaas timirtiisas ee noqoto waxaa dhigaysaa meel dhigaysaa markaa meel dhigtid subaxdii kaba soo qaad habeenkii sameysay habeenkeedii kale maalinka kasoo wareegto haddaa artid waxaa markii la dhigo faminate ku dhaco faminatekaas wuxuu shaqeynaya waxyaalo ayaa process ayaa ka dhexdhacayo xoog ayay yihiin waxa marka badan dab maro xoog ma laha laakiin marka sas meel biyo looga dhigo aad ayay xoog badan yihiin timirtaada marka biyaha sas ku shubatid maalin kasoo wareegtay waxaa sameynaysaa way bajaajiqaysaa arkaysaa markay bajaajiqdo waxaa soo qaadanaysaa malabkan kaa soo qaadatid qaadada la soo qaadan qaada weyn yahay qaadadana kala haato asxaabta qaaliga wiilasha Soomaalida ayaa la hadlaya af Soomaali ku hadlayo qofka lama hadlayo afar qaado kow waa shubaysaa kow labo saddex afar markay noqoto ku walaaqdid waa qaadanaysaa waa ku shiidaysaa makiinada marinaysaa qaca ka siinaysaa markaas waa arki doontaa faa'iidooyin badan ayaa ka arki doontaa biyahaaga xoogiisa ayaa soo laabanayo muu baahnidina kaniiniyo qaadatid haddaa wax qaadanaysid aan kula talinayo waxa ku fiican vitamiinyaasha ama cuntooyinka zinkiga ku badan yahay cuntooyinka ay ku badan tahay xitaa maxaa la dhahaa vitamiinka la dhahaayo magaciisa inii soo sheegi doona isna uga maqan yahay hadda oo vitamiin ah isna vitamiin A-ga uu fiican yahay nimanka zinkiga uu fiican yahay soo kuwaas iyo cuntooyinkooda cuna ku dhihi lahaa haddaa daawo hal mar jirkaaga siisid wuxuu ku mudarayso adoo yar ayaa waxa kaa daba imaanayo side effects wax jirka dilo oo waxaas daawadaas dhinac fiican ay leedahay dhinac xun ay dhaqso ka daba imaanayo soo dhaqso way ku buriyani dhaqso ayaa
jirkaagii processkiisa ay dhaqso dilaysaa ayaan ku dhihi lahaa, nimnimadaada ay hoos u ridaysaa. So cuntooyinka ku dadaalaan dhihi lahaa, gym samee, exercise samee, caloosha iska gooy, cunto fiican cun, malayga salmoonka cun, cagaarka cun, biyaha oo fruitska la shiidaayo, caanaha, yogurtka xasan ku fiican, iyo waxaa ku fiican maxaa la dhahaa looska, waxaasaan iminka u fiican. hadda waxaa ka hornaa qaso hadda kuma soo celinayo. soo saas markuu ku noqdo 4 daqiiqadood waa shiidanaysaa, waa cabaysaa, maalin kasta cabaysaa. soo jirka waa arki doontaa biyahaaga xoogooda xidhan ay soo laabanayaan. soo waxaan ka rajaynayaa inay ka faa'iiday, hadda faa'iiday sheegaraya, wiilasha la sheegaraya oo si ayagana ka faa'iidaan. meesha nagala socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka, waana walaashiina Shukri Aadan Bulle. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. soo wiilasha hadda waxaan u sheegay vitaminka u fiican 7C ayaa la dhahaa, tabletkan waaye, aad u fiican yahay, vitamin waaye, meel kasta lagu gadaa. waxaan ku dhihi lahaa kana doono, habeenkii markaad seexanaysid hal xabo ka cuna ku dhihi lahaa. aad iyo aad ayuu important u yahay rag iyo dumar, laakiin raggana aad ayuu u fiican yahay. soo ani taladayda, soo meel kasta adduunka laga helaa. 7C ayaa la dhahaa, waxaa laga sameeyey malayga beerkiisa. soo insha allah waa kaas la socday, ninkuu mahadsan.